Cabdullaahi Xuseen Gacal, Khaliif Cilmi Siyaad iyo Cabdi Cusmaan Jaliil waxay ahaayeen debleydii weerarka ku qaaday ciidamo isugu jiro xoogga dalka iyo weliba Niza oo safar socdaal ah ku marayay wadada isku xirta Galgaduud iyo Hiiraan. 24kii bishii 3aad sanadani aan ku jirno ayaa saddexdan eedaysana ay ahayd markii ay isku dayeen in ay dhibaato gaarsiiyaan ciidamadani oo safar u ahaa caasimada maamulkaasi Galmudug ee Dhuusamareeb. Kadib markii ay gaareen deegaanka Bacda ee hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa ciidamada si lama filaan ah ugu warheleen dhawaqa rasaasta ee ay soo ridayeen debleydani. rasaastii ay isweedaarsadeen ciidamada dawladda iyo weliba debleydan hubaysan ayaa waxaa ku geeriyooday hooyo Dahaba Macow Dhoore iyo weliba Nashaad Cabdi Salaad Gaabow oo ayeeye ay u ahayd hooyo Dahabo. marxuumad Nashaad Cabdi Salaad Gaabow ayaa waxa ay maxkamadda magteedii saartay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa xukunno kala duwan ku riday saddexdan eedaysane. xukunka ay soo saartay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulle Aadan. markay dhageysatay maragii la hor keenay maxkamadda oo ka hor cadeeyay in eedaysanaha koowaad Cabdullaahi Xuseen Gacal uu ahaa ninka xabadda bilaabay sababna uu ahaa in meesha uu dagaal ka dhaco kuna dhintaan marxuumiinta sare ku xusan. sidoo kale maragii la hor keenay maxkamadda ayaa cadeeyay in eedaysanaha labaad Khaliif Cilmi Siyaad uu ahaa ninkii ciidamada dawladda ku dhahay nooga baxa magaalada kadibna sidaas uu ku bilowday dagaalka. markay aragtay marag muujintii garsoorka la hor keenay sida qoraalka eedaysanayaasha loogu qoray garsoorka hortiisa cadeymaha laga qoray marqaatiga sawirka marxuumiinta sare ku xusan. markay dhageysatay dooda u dhaxaysay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanayaasha sare ku xusan. sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad waxa uu cadaatay in eedaysanayaasha sare ku xusan ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay. waxayna maxkamadda ku xukuntay 1 dambiile Cabdullaahi Xuseen Gacal 10 sano xabsi ciidan ah. 2 dambiile Khaliif Cilmi Siyaad 10 sano xabsi ciidan ah. 3 dambiile Cabdi Cusmaan Jaliil 8 sano xabsi ciidan ah. iyo in ay si wada jir ah u bixiyaan xukunsanayaasha sare ku xusan magtii marxuumad Dahaba Macow Dhoore. sidoo kale maxkamaddu waxa uu cadaatay in marxuumad Nashaad Cabdi Salaad Gaabow ay ku dhimatay xabadihii ay rideen ciidamada dawladda si kama ahna ku dhimatay. magteedana waxa bixinaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan maadaama askarta ayagoo waajibkooda gudanaya khaladkaas ka dhacay. cidii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan. wabillahi tawfiiq. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Beledweyne.